بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، وأنا كنا جرني مسائل كي فقه الصوم كصاب سنة جارهان صيامها العذر أين كنا جرني نوع اللحاد أي نعاوز تاكو الصمين دونا. نوع اللحاد وحويان وقف بهذي إنو أفره للتقوي به على الجهاد في سبيل الله. مثلا وادولان دقال بالقليه دقال كان مركي للربا إن لقلنا صورة قل نقن ما يسوقفك إنو سر رسمي أو دقال لما إنو أفرمو يعني قفك محاوبة نانانسة إنو أفرأ يا أوبا نانانسة ما لميه وأفرنا كدبو سوق اللينية جهاد كان لو فيرين مايو إن سفر لو قلي لو فيرين مايو iyo magaaladii qofka uu deganaa inuu dagaal kaga jiro midna loo fiirin maayo. bimujarad jihaad lagu jiro, dagaal lagu jiro, layskuna awoodin in soonkiina la soomo, dagaalkiina la wado ee maxay banaynaysaa in la afuro ayay banaynaysaa. sababtu maxay tahay? sababtu waxa weeyaan qofkani waxaa laga rabaa inuu muslimiinta difaaco kelmadda Allana tabaaraka wa tacaala kor u qaado. haddii sidaa noqotana qofkii awoodiisoo dhammaystiran u bixiyo ayaa laga rabaa. qofkan sooman ee daciifka noqdayna awoodiisoo dhammaystiran ma bixin karo, nimankaa uu la dagaalamayana iskama dhicin karo. marka waxaa u bannaanaanaysa inuu afuro ayaa u bannaanaanaysa. rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ku soo aroortay fii saxiix muslim, abuu saciidin alkhudrina uu warinayo, markii khaswadii fatxu maka lagu jiray ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada ku yidhi qad danawtum min caduwikum waalfitru aqwaa lakum. cadowgiinni waa dhow yahay inaa afurtaan baana idiin awood badan buu ku yidhi. markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalinta muxuu siiyey? khiyaar buu siiyey. oo khiyaarku muxuu yahay? inaa afurtaan baa idiin fiican, laakiin waa idiin bannaantay maxay? inaad soontaan waa idiin bannaantay. marka wuxuu leeyahay abuu saciid waxaa noqday waxu qaybsameen laba qaybood, qaybna way afurtay, qaybna way soontay. kadibna waanu guurnay oo cadowgii baan u sii dhowaanay. markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi buu yidhi innakum musabbixuu caduwikum waalfitru aqwaa lakum fa aftiruu wa kaanat casmatan fa aftarna. baryo hadduu waagu baryo cadowgii baa layshelayaa, laysgelayaa. inaad afurtaan baana idin xoog badan, waa la afuraya maanta mana. wuxuu rasuulka markaa amar ku siiyey in la afuro ayuu amar ku siiyey. ninka amiirka ciidanka wataa markaa waa u bannaan tahay hadduu xaaladda markuu qiimeeyo cadowga laysgelayna uu qiimeeyo u arko inuu ciidanka amar ku siiyo in ay afuraan, sidaa rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam uu amarka ugu siiyey. xaaladda noocaas markaa maxaa bannaan in la afuro bannaantay? maxaa lagu leeyay? qallabasaa lagu leeyay khalaas. nooca toddobaad ee cudurdaarka helaya ee isagana ay u bannaan tahay inuu afuro waxa weeyaan qof gaajo daran ay qabatay ama haraad daran baa qabtay. markii la fiiriyeyna wuxuu ku dhowaaday maxay? inuu halaagsamo ayuu ku dhowaaday, ama wuxuu ku dhowaaday caqligiisu inuu isku dhex daato ayuu ku dhowaaday. ama waxaa la yidhi ninka haddii saacadaha soo socda saacaddan gudaheeda aan cunto la siinin araggiisu wuu damayaa ama wuu dhagabeelayaa ama dareemayaasha qaarkood baa lumaya ayaa la yidhi. qofkaasoo kale maxaa u bannaan markaas in la afursiiyo iyana oo bannaan. cudurdaarkaasaa keeni macnaa qofka shalay muxuu ahaa? qawi buu ahaa, wuu soomi karaayey, caafimaadna wuu qabaa, laakiin gaajo daran baa qabatay. waxaa laga yaabaa inuu xalay afurkii ilaaway ama suxuurtii uu ilaaway ayaa laga yaabaa, wuu ka mashquulay. subaxii buu yidhi iska soon, kadibna wuu diiday. hadduu diiday markaa uu indhamadoobaaday maxaa la samaynayaa? waa la afursiinaya macnaa, waa la afursiinaya. laakiin maxaa la siinayaa? maa yasudu bihi ramaq ayaa la siinayaa, in macnaa caloosha uun miirka u soo celisa ayaa la siinaya. oo inta qofka xalaasha waxa weeyaan waa intii baktiga xalaasha ka ahayd weeyaan. qofka gaajooday, gaajaa qabatay, bakti buu helay. baktiga muxuu ka cunayaa? wuxuu ka cunayaa intii nafta uu ku soo celinayo ayuu ka cunaya. laakiin la odhan maayo ninkan maadaama waxa afuri ay tahay gaajo iyo haraad daran oo qabtay uu saas markaa uu diido, la odhan maayo ha iska cuna intaas gelika dambe ka hadha iska cuno. waa la noolayn, waxaa la leeyahay bas mar dambe ha u laabanin baa leeyahy. kadibna maalintaa wuu soo qallaynaya.
ده إلهي تبارك وتعالى نفتين إنه هلاقنه إنه بني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أولادكم إن الله كان بكم رحيما لكن waxa shartiya inaan la saashanin ee sardiya waxa laga yaabaa inuu qof yiraahdo aniga gaajaan dhimanaya waa iga caddahay haddaan cunto la isiinina waa iga xaalkii waxaad caadi maaha taas la yeeli maayo bakti goormaa la aadaa bakti waxaa la aadaa markii la waayo wax lagaga maarmo in la waayo ayaa la aadaa faman idurra fii makhmasatin baan macna غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم قفك النوع عاصة مركا وإن ضرورة عد أو تعالى مركاسة أي جرتويان ساسو مركا قفكنا وكافريا عذر دارك مركا كان قفك النوع فرمحوي هاي وقاشة درنا كود عدي أما هرات درنا كود عاي وقفك والنقضي بينه سكرات قاعدة والنقضي ويان kii horena cudurdaarka muxuu ahaa jihaadkii dagaalka ayaa lagu galay oo lagu xoogaysanayay nooca sideedaad ee cudurdaarka helaya ee afuraya isaguna waxa weeyaan waa qof u baahday inuu u afuro si uu qof kale dhibaato uga rafayo ayuu baahday matalan guri baa gubtay dhul baa gubtay matalan dhulkaa gubtay baa waxaa la rabaa in la damiyo ee la rabaa dadkii markaa dabdamisa ka shaqaynayay waxay gelayaan holac iyo dab bay gelayaan haddaanay afurin oo soomanaadaanna shaqadii ma qaban karaan dadka meesha ku jira iyo hantida meesha ku jirtana lama inqaadin karo oo lama badbaadin karo maxay haddaan awood la gelinin lama badbaadin karo markaasoo kale waxaa u bannaan inuu qofkii afuro oo u bannaan tahay si markaa hantida meesha taallo oo kale loo badbaadiyo amaba dadkaa meesha ku gubanaya loo badbaadiyo waxaa la mida matalan dad baa guri ku dumay gurigiibaa marka ay ku hoos jiraan way nool yihiin in la badbaadiyaa la rabaa haddii aan laga fujin waxa saaranna lama badbaadin karo qofkii haddaanu afurin oo caloosha aanu buuxinna waxaan kor saaran qofka ma qaadi karo markaasoo kale maxaa u bannaan isagana inuu afuro u bannaatay matala ilmaha ku daatay webiga ku daatay ilmihii webiga ku daatay markaa dadkii ka soo guraayay oo ilmaha badbaadinayay haddaanay biyahaas aanay u afurin waxa qaadanay maxay biyaha qaadanaya waa daciif way afurayaan saasay markaa ilmaha ay ku soo badbaadinayaan sababtu maxay tahay dadka muslimiinta ee dhibtu haysato in la badbaadiyo waa waajib shayga waajibkaana wixii aanu ku dhammaystirmahayn la'aantiisa isna wuxuu noqonayaa waajib buu noqonayaa maa laa yatimul waajibu ilaa bihi fa huwa waajibun markaa qofka in la badbaadiyo gubanaya waa waajib in markaa haddii la yidhaahdo qofkii ilaa uu afuro ma badbaadin karna in la afuro maxay noqonaysa markaas waajib bay noqonaysa lakiin qofka saa ku afuray isagu wuu soo qallaynaya bas maalinta afur ayuunbuu soo qallaynaya marka dadka cudurdaarada leh kuwa iyaga noocaasa ayaa ka mid a mid walbana soonkiisa siduu ka yeelaayo waynu soo sheegnay ilaahayna jalla wacalaa waxaynu weydiisanaynaa tawfiiq iyo sadaad iyo toosnaan baynu weydiisanaynaa cibaadaadkeenna iyo ramadaantii cibaadaadkeenna naga aqbalna waynu weydiisanaynaa subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk